hadduu marunka dhammaaday kudhaa xilligii adkaaye heedhe kasoo kaba dib u dhiciisii xasuusaha sida dadka kommentiyadooda si kale bal aynu ka hadalno barnaamijkeena ugu magac darnay xasuusaha saameynta leh ee dadka kommentiyadooda heesaha qaar waxay saameyn ku yeeshaan dadka iyagoo ku cabiro xaalado kala duwan kuwaas oo xasuus ku leh sida qoyskooda jacaylkooda carruurtooda farxad ama murug ka soo wareegatay 20 sano iyo wixii ka badan ama yaraantooda iyo wixii la halmaala balse daawade ma jirtaa hees saameyn kugu leh amase saameyn kugu leedahay heesta hadda aynu shidi doonno kadibna waxaynu falaqayn doonaa kommentiyada aroortii qirankooday iyo udgoonkii gufaacaday aroortii qirankooday iyo udgoonkii gufaacaday xariirtii iyoon tirtiyo raxmadan ku ildoogsaday xariirtii iyoon tirtiyo raxmadan ku ildoogsaday asaaski udub dhigiyo aqal katiire isu hayay asaaski udub dhigiyo aqal katiire isu hayay siday wiilu ilmaheed egmada ugu la xasataa uurku nugu seexato codkale looma ogolaa codkale looma ogolaa codkale looma ogolaa codkale looma ogolaa kommentiyadan kuwii ka horreeyay waxaad ka daawan kartaa muuqaaladii ka horreeyay muuqaalkan oo ah isla haystan aynu ku bilaawna lambarka 10aad axmed moo waa sanadka hore wuxuuna leeyahay waayo heesta waxaa dhegaysan jiray walaaladeeda 2004 walaalkan wuxuu ku xasuustaa weliba si qaasa walaaladiis dabcanna way ka weynaayeen lambarka 11aad sadiiq cali sanadka hore wuxuuna heestan u leeyahay heestan waxaan ku xasuustaa 2002 bishii 3aad weliba si qaas ay u xusay taariikhda anigoo yar inay ka baxaysay aroos wakhtiga sidaas ayuuna u cararayaa ilaahay cibaado suban iyo camal wanaagsan aamiin dhammaantiin walaal lambarka 12aad naciime axmed waa gabadh 4 sano ka hor naciime axmed 4 sano ka hor waxayna leedahay xusuus iyo waayo xaggayga wiilkii ugu horreeyey oo jacayl igula imaaday ayaa ii keenay cd-geeda nambarka 13aad maxamed kaamil sanad ka hor wallaahi waa xasuus heestan maxaan in badan raadiyey waaba ka quustay balse mar aan isbuucan dhexdiisa raadiya ka dhagaysanayay ayaan maqlay dibna u galay raadinteeda kama dambays waan helay hambalyo ayaan ku leeyahay walaal maadaama aad raadinaysay shayga adiga xasuusta kugu lahaa lambarka 14aad maxamed xubbi 2 sano ka hor wuxuu leeyahay walaalkan 2004 iyo 2005 anoo iskuul ligto ayaan jeclaaday inan aynu isku galaas ahayn kadibna waan kala baqi jirnay maalintii dambe maadaama ay kala baqi jireen ayuu maalintii dambe go'aansaday inuu isla haystan oo u qoro kadibna miiska u geliyo balse wuxuu leeyahay waxaa dhacday gabadh kale ayaa soo fadhiisatay miiska ay soo fadhiisan jirtay gabadhii uu asaga u jeclaa kadibna gabadhii ayaa ardaydii wada tustay kadibna macalinkii ayay gaartay wuxuuna leeyahay markii ay macalinkii gaartay ti iga raacday ilaah unbaa ogaa walaalkan taariikhda saameynta ku leh aad iyo aad ayaan uga xumaay kadibna qosol ayuu raaciyey xusuus wallaahi nambarka 15aad waa kommentigii ugu dambeeyey weliba midka ugu saameynta badnaa naciime faarax ifiye 3 bil ka hor heestan waa raadiyey in muddo ah balse caawa ayaan helay 2020 bishii 12keeda waa xasuus dheer anigoo yar baan dhagaysan jiray weliba idaacadaha muqdisho ayaa laga soo dayn jiray mar walba inta badan dadka kalena cajalado ayay ku soo duuban jireen waxaana la isiiyey oday da'diisu tahay 67 sano aniguna waxaan jiray 12 sano weliba dharka ciidda aan ku ciidayay baa la ii xidhaayay bay leedahay laakiin waxaa jiray oday kale oo hooyaday markay i dilayso iga celin jiray waxaan u baahdana isiin jiray dhaqaale ahaan iyo wixii raalli aan ka ahay laakiin isaga uu jeclaa aniguna jacaylka maanan aqoon oo ciil iyo ciqaab adduunyo baan la daala dhacayay
oo mar walba dhibana baan ahaa laakiin waxa uu hel ii ahaan jiray heesaha qaar oo waqtigaas ka turjumayo odayga ijaalaa markuu maqan yahay waxaan la kulmi jiray dhib fara badan waan dareemi jiray inuu iga maqan yahay haddana afka kama aanan odhan karin waxaan raba inaan idhaahdo jacaylka dhibaato ayuu leeyahay weliba midka aamusnaanta kugu galo shaki ma lahan 2003 ayay ahayd allah wada naxariisto dhammaantood aniga xaggayga commentiga ugu saameynta badnaa gabadhan ayuu ahaa walaasheeda balse waxaan odhan lahaaba iyadoo heys ahaana BK ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamij midkan lamid intaynu ku kulmi doono sidaa nabadgelyo dabtiida xadigi dhaqsoo gaarsiina dhaa haysu dhiibinaa nafyaay soo dhabaradaytay daaxu ku haya cishqigu nafyaay soo dhabaradaytay daaxu ku haya cishqigu hadduu marunka dhammaaday ku dhaaf xilligii adkaaye heedhahunno aado kasoo kaba dibu dhiciisii nafyaay soo dhabaradaytay daaxu ku haya cishqigu nafyaay soo dhabaradaytay daaxu ku haya cishqigu hadduu marunka dhammaaday ku dhaaf xilligii adkaaye heedhahunno aado kasoo kaba dibu dhiciisii